Tibetan family waxay ku nool yihiin isla dhajaantani hareeraheeda. Afartan ubadkaasi waxay weli sugayaan isla hooyadood inay timaado iyadoo cunto sida. Aabuhuna dharaartani wuxuu ku mashquulsanaa sidoo uu keeni lahaa cunto ku sugitaan ah oo ay ugu sugaan isla hooyadood. Bigas ama bakayla ama jiir midu yahayba garan waaye. Waa darsiimada ay ku sugayaan isla cuntada ay hooyadu keeni doonto. Waana cunto ay sidoo kale ay ku tiirsan yihiin noloshooda ahaan. Waxayna ku nool yihiin dhulka hoose iyagoo tiro badan. Waxayna ku nool yihiin intooda u badan isla caleemahanin iyo tigaadani. Iyagana waa lagu sii nool yahay oo kuwa kale ay u yihiin cuntadooda maalinlaha. Walow ay ku nool yihiin dhulka hoose kuma adka ama lama waayo xal loo ugaarsado markay dibadda u soo baxaan ayay ugaarsanaysaa isla tani. Gudka markay ka dheeraan dagaal ayaa lagu soo qaaday. Hadda waa ka baxay kaasi, kan kale la qabay, kan mar la qabay, kan waa la qabtay. Waana fursad ah kaliya markay gudka ka soo dheeraadaan in la qabto. La soco qaybta labaad Tibetan.